hadlaysa markaan dhageystay amiiro markaan dhageystay codkeedii ayadana aad baan uga xumaaday. aniga Malaysia aan joogaa. amiiro waxay tiri istaalka markii la tagaayo waxaa la iska baaraa tasti corona waa hore u dambeysay corona iska baara iska daa maaski xitaa hadda waa la iska daayay Malaysia in la xirto. marka bismillaahir rahmaanir rahiim asxaabada salaamay waxaan halkan hal iyo laba inaan ka dhex araba hadalka waa gafaaya amiira waxaan ka hor video soo duubay abaayo ugu tacsiinay ma arkin videoga amiiro laakiin hadda soo arkay youtube ka ana dhex wareegay ayadoo codka gabadha soo dhigayso oo dhahayso in la soo booqdo gabadhaas diyaar uma ahayn codka gabadha oo tiktok la soo dhigan waan dhageystay. horta amiiro abaayo حتى even hadda gabadhaas ma idinka qaldana sababtoo qofka xanuunsan asaa la garba in soo booqdo isbitaalka ku jirto ma weydin kartiin because isku magaalaad tihiin. ana maanta Nairobi haddaan ku xanuunsato haddaan lambarkayga la waayo ama aan qaban waayo qof kale ii xigo dad haddaan dad la ka siin qof kale garanay ama qof la weydi karaa so ina wallahi maanta codkeeda baa YouTube ala soo fariisato gabadhiyo one day ka soo wareegan cunugeedii oo la xabaalay oo aad amiiro ka soo jawaabtid wallahi oo billahi tala abaay ma fiicnaan hadii la isqabsan waayeen dadka been isku sheegaan baant goor walaashiya tahay hooyaa tahay wiil haysata curud ku ah gabadhaas maanta waxay isbitaal kula jirto oo ka geeriyoodo wiilkeeda curudka dhibaato dareemaysaa hatta wax kasta day jiraan iska aamusteed walba hatta bilooyin ama maalmo ka soo wareegtaan arinta hatta ka hadashid inaad ka hadlin inkastoo fiicnaan laakiin hadda gabadhii oo abaayo murugeysan ayaad meel u soo fariisatay abaa wallahi wax xuna sameysay hadda please bal videogaas iska bixi muslimka dhan way kula yaabihiin wallahi amiiro shalay ma xasuustaa sidii lagu garab taagnaa aniga shalay ma ka dhibaataysnaa gabdho Soomaaliyeed wiil Soomaaliyeed sa ii garab taagnaayin wallahi maanta ma rabin inaan hadlo ama aan social media ka soo hadlo waxa amiiro markaan dhageystay codkeedii ayadana aad baan uga xumaaday. aniga Malaysia aan joogaa. amiiro waxay tiri istaalka markii la tagaayo waxaa la iska baaraa tasti corona waa hore u dambeysay corona iska baara iska daa maaski xitaa hadda waa la iska daayay Malaysia in la xirto. marka wax kasto ay ahayd waxa isku fuuqsanaya shalay gabadha markii dhibku ku dhacay geeridu ku timid meydka guri kuma jirin amiiray habar yar meydka guri kuma jirin meydka wuxuu yaala masaajid istaalka laga soo qaaday masaajida la keenay masaajidka markii la keenay dadka dhan way imaanayeen markii dadka dhan imaanayeen hadaa halka timaadiye idin la hadlin hadaa rabtid muhiim ma ahan ina gabadha idin la hadasho muhiim ma ahan ina tiraahdiin gabadhu shalay telefoon naga qaban weyse maxaa maanta meesha yaala waay waxa maanta meesha yaala geeri adiga inta lagu soo jiro ma ogid in geerida xanuunka yani la isku yimaado garab la isi siiyo waay muhiimadu amiiroy taas aad baad ugu qaldanta maalinka ooyaysa dadkii kula ooyayaan ahayn siboodka ku siinaye ku garab taagnaa maanta ma ahayn tan inaad ku hadashid ankee maanta waxaa kaa fiican dadka saylantka xirtay oo aamusay waxaa tusinaysiin dadka Malaysia dadka jooga youtuberada kaliya ma ahan dadka dhibaateeyo badan baa jooga maama waayeela oo gacantaa dhan ka jaban maanta Malaysia joogta oo la yiri gacantaadan lacag la'aan aa lagugu daaweynayaa koow qaxootiga galaysa horaa lagu qaadaya lagu keena Malaysia lacag laga cuno laga dhacay maanta lacag loo aruuriyo marka dhibaatada Malaysia ka jirta youtuberada kaliya ma ahan dadka Malaysia jooga in aan ilaahay ka cabsanayn baa joogto oo dadka inay dhibaateeyaan jecel
moodaya dhibka maanta qofkaasi uu sameeyey meeshaa inuu uga harayo ogamana harayo dhibka maanta aad samaysay garabku kuu suran yahay yoomal ayaam buu midigta iyo bidixda miduu raba kaaga imaanaya inta afkaaga aad ilaashatid oo aad tilaabsatid ayaa dhibka iyo shartuna kuu jiraysaa gabadhaa yar samir iyo iimaan allah ka siiyo ilmiga yar maxamed yare adduunka intaanu ku lahaa yaa waranka waxaa la yiri qofka kugu muda iyo kun kugu ligliga waxaa xanuun badan ka kugu ligliga dadka hadlay xanuunkii iyo warankii gabadha hayay ayay ku ligligeen ha ku ligligin bukaankii waa kusoo booqan weyse geeridii waad ugu imaan weyse dhagaysta codkeeda waa wacnay no wax kuuma noqonaysa qiil shalay gabadhaan la ooyeynaa ahayd maanta tan qiil kuuma noqonayso samsam way bogsanaysaa insha allah amiirana waxaan leeyahay xanuunka maanta samsam dareemayso haddaad dareemayso maada soo hadasheen hooyaa tahay in xanuunka aad la dareentaa laheyd inaad ka soo hadasho ma aada lahayn rasmi raysna waxaan leeyahay waad ku mahadsantahay waanada aad siisay amiira hadday qaadanayso waano midda ugu fiican ee qof ku waaniyo walaalihi dhammaan reer maleeshiyana waxaan leeyahay adoo ilaahay gargaar ka raba ya inaad qof dhibaataysid ama qof aad xumaysid waa ku ayaan daro see gargaarka ilaahay ku helaysaa see ilaahay inuu ku caawiyo ku helaysaa haddaad rabtid addoonkii ilaahay soo daystay oo risaaqadda ilaahay adiga asagaba yaa adoo wanaag heli kara xumaan ha falan beer xumaan ha falan adoo beer wanaaga oo cagaara oo dooga samaysan kara beer xumaan ha falan intaasaa reer maleeshiya leeyahay ilaahayna qalbigooda ha ka dhigo qalbi jilacsan dadka qalbigooda inuu sii madoobaanaya ii muuqatee ilaahay qalbigooda qalbi wanaagsan ha ka dhigo dhammaantiin waxaa idin leeyahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.